dhammaadkii bishii May 2025 Puntland ayaa shaacisay in ay gaartay guul taariikhi ah kadib markii ay kooxda ISIS ee Soomaaliya ku jabisay buraha Calmiskaad. Ciidamada difaaca ee Puntland waxa ay gacanta ku dhigeen markaas xeriyihii ugu dambeeyay ee kooxda iyaga oo burburiyay xarumo tababar, garsoor maxkamadeed iyo warshado kooxdan hub u sameyn jiray waxayna la wareegeen sahay culus. Warbixin ay maanta soo saartay hay'adda amniga ee lagu magacaabo Critical Threat waxa ay sheegtay in hawlgalkii ugu dambeeyay uu ku dhamaaday guul weyn taasi oo calaamad u ah in ISIS laga saaray Puntland. Duulaanka weyn ee lagu beegsanayay ISIS waxa uu bilowday bishii December 2024 iyada oo Puntland ay garab ka heshay Imaaraadka iyo Mareykanka oo si weyn u caawiyay ka hor dagaalkana si weyn uga digay khatarta kooxdan. waxa ay warbixinta hay'addan lagu xusay in taliska Mareykanka ee Africom uu fuliyay ugu yaraan 19 duqeyn oo cirka ah laguna dilay saraakiil muhiim ah oo ka tirsaneed kooxda IS kuwaasi oo ku lug lahaaba la yiri qorshayaal caalami ah oo khatartooda leh. warbixinta hay'addan waxay intaasi ku dartay in isla waqtigaasi Puntland ay xanibtay 10 akoon bangi oo lala xiriirinayo ISIS iyada oo sidoo kale xirxirtay shabakado lacageed oo ka shaqeynaya Boosaaso taasi oo lagu tilmaamay magaaladan isha ugu weyn ee maalgelinta ISIS ee gobolka kana biili jirta baa la yiri magaaladan faracyada Afrika iyo Aasiya ayaa lagu yiri warbixinta hay'addan ka soo baxday. Critical Threat waxa ay si cad u sheegtay in ISIS aysan wali gabi ahaanba burburin inkasta oo si weyn loo daciifiyay awoodeeda haddana waxa ay wali leeyihiin awood ay weeraraan ama ay ku weerari karaan meel cayiman iyada oo la diiwaan geliyay 20 weerar bilihii January iyo February inkasta oo ay hoos u dhaceen weeraradu intii laga soo gaarayay bishii May. kooxda ISIS wali waxa ay leedahay awood ay weerar ku fuliso waxa ayna si joogto ah ugu dhuumataa deegaanada buraha Calmiskaad ayaga oo dhar rayid ah wata si ay uga fakadaan ciidamada difaaca Puntland ayaa lagu yiri warbixintan ay soo saartay hay'addu. Puntland waxay xoojisay la shaqeynta shacabka deegaanka si loo yareeyo taageerada maxalliga ee kooxda laakiin sida lagu sheegay warbixinta Puntland ma leh mana haysato awood ay ku sugto xeebaha furan iyo buraha waaweyn ee gobolka. marinada tahriibka iyo hubka gaar ahaan kuwa xuutiyiinta ka yimaada ee Yemen waxa ayna wali khatar ku yihiin amniga gobolka ayaa lagu yiri warbixinta. hay'addu waxa ay ku soo gabagabaysay warbixinteedan ay maanta soo saartay oo ay si weyn uga falaqootay khatarta kooxdan guud ahaan Afrika iyo Asia. waxay tiri si guusha ciidamada difaaca Puntland ay u noqoto mid waarta dawladdu waxay u baahan tahay qorshe joogto ah oo lagu xakameeyo xeebaha lagu sugo amniga buraha Calmiskaad laguna wiiqo dhaqaale ahaan kooxaha khatarta ah. Critical Threat waxa ay sidoo kale sheegtay in Puntland aysan wali shaacin qorshe ciidan joogto ah oo lagu xaqiijinayo ammaanka buraha Calmiskaad kadib hawlgalka. haddii cadaadis joogto ah aan lagu haynin kooxda waxay awood u yeelan kartaa in ay dib isu abaabusho ayaa lagu soo gabagabeeyay warbixintan oo maanta ka soo baxday hay'addan. warbixintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Puntland ay sheegtay in ay baacsanayso waxay ugu yeertay firxadka kooxda Daesh oo ay sheegtay in gabi ahaanba lagu jibiyay buraleyda Calmiskaad sidoo kalena lagala wareegay dhammaan saldhigyadeedii istaraatiijiga ahaa. adeegga deposit ee bangiga Salaam waa adeeg qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeegga sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bangiga Salaam. haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees. sidoo kale si aad ula baxday lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta xidig binka akoonkaaga. waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxayna ku wareejsan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan.